إلهي سبحانه وتعالى وحد إلهي فرصد نوسيي إني أنجا أو تلذيني أرمها إنك تشنين أن ما أنت سكوجي معنا نبكي دعي دبقل كيسي أيضا لك هاللاية أن أنت سكوجي معنا يمددي لقب صدي وهاي هاد أفرية طبعا بري أفرية طبعا كبري بري أياكو إكتهاي إلهي وحنقوم هاد علينا سبحانه وتعالى كنجر رسق هاتسن ونقوم هاد علينا مالين تاسي هذا دحضوض وحدل يداوع يدب هاد دعي مجرى وحيالا يرير أو مسكحال أدون هو مالين والباب اسكجري دون أنت أدون أسجري مؤوجية دب كلو دعي ملها سببها لألي قوضا نسقوي معني دولة كاونتي دي odayaalkii labadii cidood waanu sii imaanay hawshii iidaheedii dabagalkeedii in hawshii meeshii laga sii wada waxaan dadweynaha labadii cidood baan u sheegaynaa inay ku maadsan yihiin xabad joojintii sidii ay u hergeliyeen dhib sidaas u dhicin ayaan ugu mahadcelinaynaa labada geesba ilaahay mahadiisa kadib haddana waxaan idinka sii codsanaynaa in dhibka ayadeed halkaas laga sii wado dhib dhicin hawsha iideed sidii loo hergeli ay ahaata col wiila ku dhinta wiil kuma dhasha sideen u qaadanay nabadda ay labada geesba ay ahaataan haddana aan ka codsanaynaa muddadii madaxdii dalka oo imbiyaalkii leh oo gafanihii leh way maqan yihiin qaarkood dibadda ay jiraan sidaas la'alligeed ayaa waxay coodsadeen in xabad joojinta la sii wada ilaa muddadii ayaga hadda imaadi doono waqtiga ay imaadaan waxaa kaloo intaas ku xigta duqaalka labada dhinacba ay soo baxayiin dhulkii ay soo marayiin meel walba ay tagayiin waa in idiin imaanayiin sababtaas la'alligeed ayaa muddadiina la dhahay intay madaxda noogu imaanaysa ayaa waqtigeeda la sheegi doona madaxdaani imaani doonto dhib wixii howl oo kaloo kulli meeshaas laga khatimi doonaa oona laga wadi doonaa beesha marka labada dhinac waxaan idinka codsanaynaa inay dhibaatadii ay sidaad u joojiseen ay noqoto dhib damba aas dhicin sidaan ugu hortagnay looga hortaga bacad meel walboon joognana aan nabadda qaadano sidaas u sheegay walaalkeen qaasin alla subxaanahu wa tacaala ayaa mahadsan maanta waa liisu imaaday waxay isu imaaday countiga dowladeenna iyo qabaa'ilka saddexdahay oo reebkay gararo reebkay dawdi reebkay murulo meeshaan howlka ayaan iskugu imaadnay annagoo aan baqaadaynaa arrimihii liisku ogaay oo nabadii 14 days ka ahay alxamdulilah ilaahay ayaa mahadsan marka hore ayna dhicin intaas waqtigaas wax dhibaato ah oo ama dil ama dhib weyn oo laga shanqareeya wixii yar oo maxaan ku dhadaa iska dhacdoonid oo yar marka hore nabadda la qabo way iska dhacayeen waxaan aad u codsanaynaa waxyaalahaas oo kale haday la arka in ay dadka meesha jooga odayaasha aad u xaliyaan marka waxaa la isku afgartay maadaama muddada ay soo dhawaatay ilaahayna arrinta uu noo hirgeliyay maxaan ku dhadaa 14 biri oo la qabsaday wax dhib aad jirin arrintina ay dhamaasho tahay 14 biri ay ku eg tahay in haddana dib loo noqdo dowladeen iyo madaxdeena ayaa naga maqan ayaga ayaa codsi noo keensadeen dheheen wax yar nooga dara dalkina ku soo dhex wareega marka waxaa la go'aansaday in cid reebkay murule cid reebkay dagoodiye cid walba dawladda ay dirta talka ku soo wareegaan ugu mahadceliyaan xabad joojinta ay sameeyeen aad ugu soo mahadceliyaan markaas ka bacdi waxyaalaha maxaan ku dhadaa yar ka hor dhacayna laga soo rakibasheeyo arrinta xabad joojinta aad iyo aad loo sahla qaraabadii meelihii biyihii iyo meelihii iskuuladii si fiican loo hagaajiyo la furo dadka walaaloobaan intaas ka bacdi madaxda markay imaadana insha Allah wixii dhimin ee processki noo socday oo bir hore ku ballanay asagana waa la dhameynaa ilaahay hadaas yiraahdo wax dhibaato ma lihin talka waxaan ka codsanaynaa labada qolo ama labada beelood labada ciidood oo maan dhaweeta dhibka xoogoo ka dhacay inay istijiyaan nabad insha Allah way soo dhowdahay waana la dhameynaa talkeenana waa is afgaranay odayaasha culimada madaxda qabaa'ilka Soomaalida oo nala degan kulli way ogtahay arrinta in la xalay waana la xalina waa dhamaan insha Allah marka aad iyo aad ayaan kugu mahadinaynaa arrintaas inaad naga qaadataan waana soo baxaynaa waan soo maraynaa kulli meelihii maxaan ku dhadaa wax ka dhaceen labada dhanba marka insha Allah saas ogaanaysiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh